salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaanba qodobada aad wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah kooxda TPLF oo xasuuq wadareed ka geysatay gobolka Axmaarada. sidoo kale gobolka Axmaarada waxaa laga soo sheegayaa inay barakacyo waaweyn ka socdaan oo TPLF ka rarayso dhulkii ay ka qabsatay huwanta dowladda federaalka hogaaminayso. sidoo kale dowladda Suudaan iyo dowladaha Suudaan iyo Itoobiya ayaa hawada isu mariyay hadallo kulkulul ay iskugu jawaabeen. sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxay Suudaan ku eedeysay inay qaxootigii Tigreega ah ee dalkaasi ku sugnaa dib u soo hubeynayso. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah maamulka Canfarta ayaa habeennimadii xalay soo bandhigay hub waaweyn iyo gaariyo taangi ah oo sheegeen in la iskaga xoreynayo Soomaalida, ayagoo ku sheegay hubkaasi in uu ka soo galay TPLF dhankeeda. iyo wararkii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya ay siyaasadiisu cakiran tahay. taariikhdu waxay ku beegan tahay 9 bisha 9 2021. haddaynu u gudagalo wararkeennii oo faahfaahsan. kooxda TPLF ayaa waxaa lagu eedeeyay inay xasuuq ba'ani ka geysatay gobolka Axmaarada. kooxda TPLF oo dagaalo xooggan kula jirta dowladda federaalka iyo huwanta ay hogaaminayso ayaa waxaa lagu eedeeyay inay xasuuq wadareed ka geysatay gobolka Axmaarada. magaalada Daabad ee ku taala gobolka Wollo ayaa waxaa la sheegay TPLF ugu yaraan inay ku khaarijisay 350 qof oo rayid ah. sida ay sheegayaan hay'adaha xuquuqda bini'aadmiga u dooda ayaa waxay sheegayaan inay xabaalo wadareed ku soo arkeen magaalada Daabad oo TPLF hadda bilihii u dambeeyay ka talinaysay ayaa waxaa la sheegayaa halkaasi inay xabaalo wadareed ay ka dhaceen ay TPLF geysatay. sidoo kale dowladda federaalka ayaa maalinimadii shalay ku eedeysay TPLF inay xasuuq wadareed kula kacday shacabka Axmaarada, ayadoo kala soocaysa shacabka deegaanadaasi ku sugan. hase yeeshee kooxda TPLF ayaa habeennimadii xalay ka soo jawaabtay hadalka lagu soo eedeeyay inay xasuuq wadareed ka geysatay gobolka Axmaarada. TPLF ayaa waxa ay tiri anagu xasuuq wadareed ma geysano, shacabkana waxba uma geysano, waxaanu laynaa uun cadowga naga soo horjeeda oo ku wadaan maamulka dowladda. sidoo kale TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay marnimo u socon inay dad shacab laayaan. cid kasta oo shacabka laysana ay dowladda tahay, ayagoo ku marmarsoonaya TPLF ay wax dishay wajigana kaga xumaynaya TPLF ayaa waxa ay sheegtay inay dagaalka sii wadi doonto dhul ballaaran ay isku sii baahinaysa iyadoo u socota caasimadda gobolka Axmaarada Baxardaar. hase yeeshee dowladda federaalka ayaa waxaad moodaa maalmihii ugu dambeeyay inay awoodo dheeraada la soo baxday, iyadoo la soo sheegayo inay ciidamo aad u fara badan lagu sii daayay dhulka ay TPLF ka taliso. sidoo kale waxaa la soo sheegayaa inay kooxda TPLF dib u gurasho sameeyeen saacadihii ugu dambeeyay. dowladda federaalka ayaa habeennimadii xalay waxa ay sheegtay inuu abaabulkii ciidanku soo gabagaboobay meeshii ugu dambeysayna marayo. TPLFna sida ugu dhaqsaha badan lagaga saari doono dhulka ay kaga sugan yihiin gobolka Axmaarada iyo Canfarta. dowladda federaalka ayaa waxay u maaran leedahay kooxdan TPLF ayaa ugu yaraan dowladdu waxay dagaal kula jirtaa 11 bilood. dowladda ayaa waxa ay sheegtay inay dagaalka sii wadi doonto TPLFna ay ka adkaani doonto. dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyay tababar waxay u soo xidhaysay ciidamo aad u fara badan. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya oo dalka dibadiisa ku maqan ayaa waxa uu sheegay inuu dagaalka TPLF lagula jiro gabagaba joogo. xisbiga barwaaqana ballantiisa inuu dalka Itoobiya barwaaqo gaarsiin doono uu wax yar ka dhiman yahay. ra'iisul wasaaraha ayaa shacabka wuxuu ugu baaqay inay isdejiyaan niyadan ay dhistaan xisbiga BBna uu arrinta meel fiican marinayo. TPLF waa xisbi dalka Itoobiya in badan ka talinayay, ugu yaraan 27 sano ka talinayay, ayaa waxaad moodaa dhanka militariga inuu aad ugu dhisan yahay, asagoo isku xirnaan badan ee dhexdiisa ka jirto. dowladda federaalka Itoobiya ayaa in badan isku dayday kooxdan TPLF gebi ahaanba in khadka laga saaro, iyadoo dagaalkii bishii November sanadkii hore lagu qaaday TPLF ay dadku isweydiinayeen TPLF meesha ay ku dambeyn doonto. ayaa haddana si dhib yar TPLF saaxada dagaalka ay dib ugu soo laba guuleystay, iyadoo dib u qabsatay gobolka Tigreega. hase yeeshee TPLF ayaa waxaad moodaa inay dagaalka ka soo wareejisay gobolka Tigreega, iyadoo dagaalka u soo bedeshay gobolka Axmaarada iyo Canfarta.
taliyaha militariga ciidamada cirka dalka Itoobiya ayaa habeennimadii xaleed waxa uu sheegay inay diyaaradaha soo gaadheen ay dowladaha saaxiibada Itoobiya ay ka heleen TPLF-na waqti dhow la soo afjari doono. taliyaha ayaa waxa uu sheegay diyaaradaha uu magacaabay inay droniska ka mid tahay. Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa usbuucyadii hore ku sugnaa dalka Turkiga iyo wadanka Ruushka. sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda inay jawaab la arki doono TPLF xaggeeda ku socota. taliyaha ayaa waxa uu sheegay ciidamada Itoobiya cirka inay gaadheen is-abaabulkii ugu dambeeyay TPLF-na maalmaha soo socda laga saari doono gobolka Axmaarada iyo Canfarta. sidoo kale dowladda Itoobiya ayaa waxa ay ku eedeysay dowladda Suudaan inay soo hubeynayso qaxootigii u barakacay waqtiga ay dagaalada gobolka waqooyi ka socdeen dalka Itoobiya dalka Suudaan inay mar labaad dib u soo hubeynayso. dowladda Itoobiya ayaa dalka Suudaan waxay ku eedeysay inay jamhado hubeysan oo laga soo hubeeyay dalka Suudaan gudihiisa ay dalka Itoobiya ku soo qulqulayaan ayadoo ku eedeysay inay tahay dhalinyaradii qaxootiga Tigreega ee ku sugnay dalka Suudaan. hase yeeshee dowladda Suudaan ayaa waxa ay sheegtay inay dalka Itoobiya hub sharci darro ah dalka Suudaan ku soo daabulayso ayadoo rabta dhibka gudaha Itoobiya ka jira inay u soo wareejiso dalka Suudaan. labadan dal oo laba dar oo jiraan oo haddana isku haysta dhulka dhexe labada dal ayaa waxaa la soo sheegayaa inay dowladda Itoobiya sheegtay Suudaan inay waqtiga rabtay inay ka faa'iideysato dagaalada xooggan ee ka socda bartamaha iyo bariga dalka Itoobiya. sidoo kale maamulka Canfarta ayaa habeennimadii xaleed wuxuu soo bandhigay hub waaweyn taangiyo gaariyo aad u badan oo ay ku sheegeen inay ka furteen kooxda TPLF. hase yeeshee raggii gaariyahaas wada ayaa waxay ku hanjabayeen inay hubkani u adeegsan doonaan shacabka Soomaalida ee ku sugan galbeedka gobolka City. hubkan iyo taangiyadan ay ciidamadu wateen ayaa waxay ku sheegeen inay ku xoreyn doonaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka City. magaalooyinka ay magacdhabeen waxaa ka mid ah magaalada Garbaciise iyo Cadaytu. hubkan ayaa waxay Canfartu ku sheegtay inuu yahay xub ka soo galay xagga Tigreega waqtigii ay dagaalka TPLF la galeen ay ka soo furteen haddana ay u adeegsan doonaan ayagoo ku sheegay inuu shacabka Soomaaliyeed gobolka Garbaciise shacabka Soomaaliyeed ku sugan gobolka City inuu yahay shacab argagixis ah oo inay Soomaalidu ahayn dad Itoobiyaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ayaa xilkii ka xayuubiyay wasiirka amniga asagoo sidoo kalena u magacaabay wasiir kaleete. hase yeeshee madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku tilmaamay hadalkaasi inuu yahay waxba kama jiraan ra'iisul wasaaruhuna uu xilka ka qaadi kan cidina. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu yahay cidda ugu sareysa dalka ee xil la qaadi karta xil la keeni karta asaga inuu yahay ra'iisul wasaaruhuna inuu shaqadiisii ahayn qabsaday. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegayaa inuu ra'iisul wasaaruhu sharciga ku tuntay shaqadii loo egmaday shaqaan ahayna uu galay dalkan oo asagu ugu sareeyay cidda xilkeeni karta ama qaadi kartana uu asaga yahay. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.